kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii kulan wareedka raadiyo Magan waxaana toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa ee xarunta caasimadda Soomaaliland qodobada aan idinku hayna barnaamijka kulan wareedka waxaa kamid ah isbaareste qof allaale qofka isbaara u taalo meesha lagu arkaa lagu dilaa xataa maxkamad lama geeynayo meesha lagu arkaa lagu dilaa isbaareste General Odawa oo amar culus dul dhigay ciidamada dawladda iyo kuwa isbaarada dhigta Ra'iisul Wasaare Xamse oo shaaciyay in duulaanka al-shabaab lagu codobtirayo laga bilaabo laba maamul goboleed oo cusub Yaasiin Faray oo ka digay arrin ka dhex jirta hay'adda sirdoonka NISA odayaal dhaqameed heshiis la galay kooxda al-shabaab oo la maxkamadeynayo madaxweynaha koonfur galbeed oo shuruud caqabada ku ah madaxda kale ee dawlad goboleedyada u bandhigay si uu doorasho uga qabto maamulkiisa mucaaradka koonfur galbeed oo ku dhawaaqay arrin uga sii daraysa xasarada siyaasadeed ee ka taagan Baydhabo al-shabaab oo xayiraad ku sameysay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud Ilhaan Cumar oo ka sheekaysay inta aysan Soomaaliya iman fikirka ay ka haysatay xaaladda dalka dibadbaxyo ka dhacay Laascaanood oo looga soo horjeeday dilalka loo geystay waxgaradka deegaankaas madaxweyne Biixi oo loogu baaqay inuu isbedel ka sameeyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Laascaanood kamana marna xubnihii ciyaaraha iyo xog sheeko oo aad ku maqli doontaan gudaha kulan wareedkeena anigu waa Fuad Cismaan waxaan idinka soo waramaya Hargeysa u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen dhameystirkooda ogeysiis macadka barashada fogaandarsiyeedka iyo tababarada cilmiga saxaafadda ee Magan oo looga haray soo saarista jiilasha cusub ee u caaboon inay ka muuqdaan masraxa warbaahineed ee casriga ah ayaa mar kale la socodsiinaya bahweynta aad u danaysa mihnada saxaafadda in uu bilaabay qaadashada fasalo cusub oo ka faa'iideysan kara mihnada saxaafadda macadkan ardadii ka aflaxay ayaa maanta u badan kuwa caan ka ah baraha bulshada iyo kuwa kale oo ka howlgala warbaahinno maxalli ah oo ku kala yaal Soomaaliya iyo meelo ka baxsan iyagoo ku bartay hab cilmiyeed fogaan arag ah adiguba waad ka faa'iideysan kartaa haddii ay riyadaadu ahayd in aad mar uu noqoto wariye qalinkiisa kaga caanamaalo afkaarihiisa tolmoon haddaba wixii macluumaad ah waxaad kala soo xiriiri kartaa tirsiimaha lambar ee Somnet Eberlex 82348943 ama Hormuud Eberlex 126891 ama Somtel Eberlex 2268 haddaba balanteenu waa ka dhabaynta hamigeena iyo rajadeena saxaafadeed hagaag aan u talaabo barnaamijkeena waxaan soo qabanayaa dhankii qodobadii aad maqasheen faahfaahinadooda General Odawa oo amar culus dul dhigay ciidanka dawladda iyo kuwa isbaarada dhigta Cismaan Cali Isxaaq ayaa si dhameystiraya qodobkan taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo ku sugan degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa amar culus dul dhigay ciidanka xoogga iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka taliyaha ayaa ciidankan ku amray in meeshii lagu arko lagu toogto ninkii isbaara dhigta isagoo aad ula dardaarmay ciidankan oo u diyaar garoobay duulaan lagu qaadayo galgaduud waxaan rabaa marka isbaarada meel aan tagnay ee taliyaha ciidanka dhulku aanu ka soo hadlinna ma jirto waa ku celcelinaynaa madaxweynaha qaranka asagana muddo badan ku celceliyay meel walba ka sheegay waajibaadkaasna anaga nasiiyo laftirkeena isbaareste qof allaale qofka isbaara u taalo meesha lagu arkaa lagu dilaa xataa maxkamad lama geeynayo meesha lagu arkaa lagu dilaa isbaareste ma la qaada karo ma dhici karto arintaas laga foojignaado saaxiibadayda qaaliga sidoo kale taliyaha ayaa aad uga hadlay dagaalka al-shabaab asigoo ciidankan kula hadlay xuduudda kala qaybisa gobolada Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe taliyaha ayaa aad u amaanay taliyaha ciidanka dhulka oo 4 bilood furimaha dagaalka ku sugan isagoo xusay in saaxiib qaali ah dagaalka lagu wayn doono maalmaha soo socda waxaan rabnaa qaluubta dadka inaan ilaalino waxaan rabnaa sharafkooda iyo karaamadooda waxaan u soconay inaan ilaalino badbaadino waxaan rabaa saaxiibadayda qaaliga ahow aad baad u mahadsantihiin waxaan u baahanaa kala dambayn waxaan u baahanaa ismaqal waxaan u baahanaa dishibiliin waxaan u baahanaa is ixtiraam waxaan u baahanaa isjacayl iyo maxabo waxaan u baahanaa farxad
ninka cariisan oo xoogaa daaldal darimo hadda iska noqo baawaran ku siinayna iska tagniya hana wareerin wareer ma jiriyo xagga waa guuto xagga waa mid kale kuwa kale hadda inta ka dhalanooyaan qabka kale waa naga horeysa hore inagu sugo taliya ayaa sheegay in uu yaraan 3,000 oo shabaab ah ay xaaladda dagaalka ka baxeen beri la soo dhaafay kuwaas oo isugu jira kuwa la dilay kuwa baxsaday iyo kuwa duurka ku jira oo dagaalka aan diyaar u ahayn. Ra'iisul Wasaare Xamse oo shaaciyay in duulaanka al-shabaab laga codobtirayo laga bilaabo 2 maamul goboleed oo cusub. Maxamed Aadan Cali ayaa isha la sii raacay qodobkan. dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa dhawaan ka bilaami doona howlgallo culus oo ka dhan ah al-shabaab sida uu shaaciyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in howlgallada ka bilaamayaan labada dowlad goboleed si loogu xiro kuwa ka socda Hirshabelle iyo Galmudug isagoo xusay in dagaalku yahay mid saf ballaaran oo isku tallaabaya. dagaalka ka bilowday Basra Xawaaley Balcad dhinaceeda shishay inuu hadda sii marayo sida aad wada aragtaan Ruunurgeed iyo meel ka sii fog aan rajaynay inuu Galmudug meelaha ay khawaarijtu uga harsan tahay laga tirtiri doono ayuu yiri. waxa uu intaas ku daray Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaa si dhaqso ah uga bilaamaya howlgallada xoreynta wixii hadda ka dambeeya dalku u soo socosho mooye ma jiro ka soo socosho Ilaahay idankiis. sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ka go'an tahay mas'uuliyadna ka saaran tahay sugidda amniga isagoo tilmaamay in abaabulkii u dambeeyay soo ilaanaya si howlgallada ugu bilowdaan deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay haweenku inay xoojiyaan garab istaaga ayna u muujiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka sida taariikhda ku xusan ilaa halgankii Xawataako sida uu hadalka u dhigay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Yaasiin Fareeyo ka digay arrin ka dhex jirta hay'adda sirdoonka NISA wariye Axmed Cali Maxamed ayaa isha la sii marinaya qodobka. xildhibaan Yaasiin Farey oo agaasimihii meelgaarka ahaa kasoo noqday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inuusan jirin sharci lagula dagaalamo argagixisada oo ku dhaqanto NISA. wuxuu sheegay in mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada NISA ay ku shaqeeyaan waxa uu ugu yeeray isxilqaan oo kula tacaalaan argagixisada taasi oo mararka qaar keenta in lagu xadgudbo muwaadin Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu sheegay xildhibaan Yaasiin Farey oo sheegay in uusan jirin sharci ama xeer kale saaraya qofka caadiga ah ee muwaadinka ah iyo hogaamiyaasha sare ee shabaabka taas oo ah halis hor leh oo aan marnaba lagu ciribtiri karin argagixisada. hadalka Yaasiin Farey ayaa imaanaya iyada oo dalku ka socdo dagaal ka dhan ah al-shabaab. odayaal dhaqameed heshiis la galay kooxdan al-shabaab oo la maxkamadeynayo Cabdilaahi Daahir Maxamuud ayaa isha la sii marinaya qodobka. odayaasha beesha reer Xaaji Saleebaan ee dhawaan heshiiska la soo galay kooxda al-shabaab ayaa waxaa shalay laga soo dejiyay magaalada Muqdisho kadib markii diyaaradda ay ka soo qaaday magaalada Dhuusamareeb. odayaasha oo tiradoodu dhan tahay 3 ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xirnaa Dhuusamareeb kadib markii ay ciidamada ammaanka Galmudug ka soo qabteen magaalada Cadaado. odayaasha oo lagu kala magacaabo Sugaal Warsame Cali Yare Axmed Xayle iyo Cumar Maxamed Jimcaale ayaa axadii toddobaadkan ka soo muuqday warbaahinta iyaga oo qirtay inay heshiis la soo galeen al-shabaab walow qaybo ka mid ah heshiiskaasi iska fogeeyeen. odayaashan ayaa Muqdisho loo keenay si loogu maxkamadeeyo kadib markii ay hay-adaha amniga maamulka Galmudug ku soo wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya. odayaashan oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aan la xirin ayaa qirtay qayb ka mid ah heshiiska oo ahayd in shabaab ay sii dayso ilaa 67 qof oo maxaabiis ahaan ay u haysteen iyo sidoo kalena ay ka soo fasaxeen gaadiid fara badan. xariga odayaashan ayaa marka hore waxaa qayb ka ahayd eedeyn culus oo ay u soo jeediyeen waxgaradka iyo cuqaasha reer Xaaji Saleebaan oo dhawaan iska fogeeyay heshiiska ay la galeen odayaashan kooxda. marka laga imaado odayaashan inay heshiis la soo galeen al-shabaab waxay beesha sheegtay inay ka mid yihiin odayaal horay ugu biiray kooxda al-shabaab
hogaamiyaha kooxda ayaa arrintan isniintii beeniyey kadib shir jaraa'id oo uu qabtay Cali Dheere. madaxweynaha koonfur galbeed oo shuruud caqabad ku ah madaxda kale ee dowlad goboleedyada u bandhigay si uu doorasho uga qabto maamulkiisa. maxamed cabdi keerow ayaa qaada dhigaya warkan. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo qayb ka ahaa madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho ayaa shuruud adag ku hiyay ka tanaasulka muddo kororsiga halka sano ee uu sameystay madaxda golaha wadatashiga qaranka oo shirkoodii cadaadis ku saaray. Laftagareen xiisada koonfur galbeed ayaa wuxuu u sheegay in doorasho uu qabanayo haddii maamulada kale ay la mid noqonayaan sida uu sheegay. xogta aan helayno ayaa intaas ku sii daraysa in shuruudda Laftagareen uu ku yiri culeyska uu ka wajahay madaxda shirka ay keentay inaysan ku qasbin qabashada doorasho balse ay ku cadaadiyeen oo kaliya inuu hal aan dagaal ahayn u keeno xiisada taagan. Laftagareen ayaa haddii lagu qasbi lahaa qabashada doorashada maamulka waxaa sidoo kale waxaa ka mid jiraan noqon lahayd muddo kororsiga halka sano ay hore u sameysteen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle. imisaad rafaadoo raadinayseen meel runta lagu hayo raadiyo magan baa rugteena timi rafiiqeeda noqo marulmaystiri noqo wariye maamula mareegtoo malaayiin qof maanka ku hayaan riyadaas rumowdow raadiyo magan baa kuu rumaysay orodoo horogar raadiyo magan waxay ka haqabtiraysaa barashada saxaafadda qaybeeda kala duwan. haddaba kala xiriir barta facebooka ee raadiyo magan. dhanka kale warkan waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaana la diyaaray wariye Saabir Maxamed Ibraahim. xubinteena ciyaaraha ee barnaamijka kulan wareedka xidhiidhka kubadda cagta Spain ayaa magacaabay garsooraha kulanka kooxda isku magaalada ee Barcelona iyo Espanyol ee horyaalka liiga toddobaadkani waxaana wadnaha afarta ku haya jamaahirta Barcelona oo aad u neceb garsoorahani oo horey ugu qeyliyay Lionel Messi. horyaalka Spain ee liiga ayaa la ciyaari doona Khamiista, Jimcaha iyo Sabtida waxaana laba jugood isku raaceen Barcelona oo hore loo ganaaxay Robert Lewandowski oo saddexda ciyaarood ee Espanyol, Atletico Madrid iyo Getafe maqnaan doona. jugta labaad ayaa in garsooraha Martin Lopez oo loo magacaabay ciyaarta koowaad ee ay dib ugu soo laabanayaan horyaalka maalinta koowaad ee sanadka cusub. dhanka kale kooxda Liverpool ayaa sii wada howlgalka ay isku xoojinayaan bisha January waxaana aynu u dhaqaaqeen saxiixa qadka dhexe oo adag saacado kadib markii ay xaqiijiyeen saxiixa Godi Gebo oo ay kala wareegeen PSV Eindhoven. Redis ayaa xalay dhameystirtay heshiiska Gebo oo muddo 6 sannadood ah u saxiixay waxaana heshiiska si rasmi ah ugu dhawaaqday PSV oo sheegtay in 23 jirkaan uu jibiyay rikoorkii iibka ee kooxda. waryahanka Netherland ayaa Anfield joogi doona ilaa inta laga gaadhayo sanadka 2028 sida uu dhigayo heshiiska hadda balse waa laga sii kordhin karaa haddii ay dhinacyada isla qaataan waa ay dhici kartaa xilligaasi ka hor inuu ka tago kooxda. Gebo ayaa noqon doono xalka dhibaatada afka hore laakiin waxa ay weli Liverpool mushkilad weyn ay ka haysataa qadka dhexe oo ah meelaha ay haatan ku wareegsan yihiin sababta u ah in ay kaalinta lixaad kaga jiraan miisaanka kala sareynta Premier League. ugu dambeyntii Martin Odegaard ayaa sheegay in uu aad u jecel yahay inuu sii joogo Arsenal dhowr sano waxa uuna meesha ka saaray fikrada ah ku biirista Liverpool. kabtanka Arsenal ayaa door muhiim ah ka soo hoos ciyaaray qorshaha Mikel Arteta iyadoo Gunners haatan ay gacanta ku hayso hogaanka Premier League. Klopp ayaa weli aad u jecel Odegaard tan iyo markii uu isku dayay inuu la soo wareego waqtigiisii Borussia Dortmund. Wareysi oo uu siiyay TV-ga Norway ee NRK
Odegaard ayaa daaha ka qaaday inuu yiraantiisii taageeri jiray Liverpool laakiin waxa uu cadeeyay inuu doorbidayo inuu sii joogo Arsenal inta uu macquulsan. Xubintii ciyaaraha oo idin socodsiinaya anigoo Saabir Yara ah halkaas ayaan idinku keenaya idinku celiye barnaamijka iyo qaybaha ka harsan. aan ku soo laabto dhankii qodobada mucaaradka koonfur galbeed oo ku dhawaaqay arin uga sii daraysa xasarada siyaasadeed ee ka taagan Baydhabo wariye Axmed Xasan Guur ayaa faahfaahinaya qodobkan. xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed ayaa weli dhaqaaqyo siyaasadeed ka wada magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo iyagoo ka soo horjeeda madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen xildhibaan Xasan Balaag oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed isla markaana hadda garabka mucaaradka ee maamulkaas ayaa waramay warbaahinta isagoo ku sugan gudaha magaalada Baydhabo wuxuuna ka hadlay xaaladda guud. Xasan Balaag ayaa sheegay dhibaatooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ee mas'uuliyadooda qaadi doona madaxda koonfur galbeed gaar ahaan Lafta Gareen. sidoo kale waxa uu tilmaamay in mucaarad ahaan go'aankoodu yahay in la qabto doorashada isla markaana meesha laga saaro qorshaha muddo kororsiga. siyaasigan ayaa shaaca ka qaaday in muddadii xilhaynta sharciga ay ka dhamaatay madaxweynaha loona baahan yahay inuu isku diyaariyo doorasho iyo ka qaybgalkeeda. arrintan ka soo baxday mucaaradka ayaa uga sii daraysa xiisada ka jirta koonfur galbeed maadaama isaguna Lafta Gareen ku adkeysanaya inuu ka dhabeeyo muddo kororsiga. Al-Shabaab waxay yaraad ku samaysay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud Nasteexa Maxamuud Xirsi ayaa qodobkan la diyaara. kooxda hubeysan ee Al-Shabaab ayaa xayiraado ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom. ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo diiday in magacooda la sheego sababo dhinaca amniga ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay joojiyeen dhaqdhaqaaqaas. shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ayaan arrintan ka hadlin. afayeenka ciidanka militariga ee Soomaaliya Sariye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood ayaa dhawaa sheegay in Al-Shabaab ay magaalooyinka ka jiraan isgaarsiinta iyo biyaha markay ka soo baxayaan hase yeeshee waxa uu sheegay in adeegyadaasi markiiba dib loogu soo celiyo deegaanadaasi. mid ka mid ah khubarada Soomaaliyeed Daraista ayaa isna sheegay in Al-Shabaab ay diideen in isgaarsiintu ay gaarto deegaanadii ay ka qabsadeen dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaankaas. taasina ayaa sabab u tahay in ay xayiraan shaqaalaha iyo baabuurta shirkaddu inay u safraan deegaanadaas. Al-Shabaab ay dhowrkii bilood ee tegay waxaa gacantooda ka baxay deegaano badan iyadoo kooxda laga saaray gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dowladuna ayaa qorsheysay in ay dagaalka ku sii fidiso gobolo kale. Ilhaan Cumar oo ka sheekaysay inta aysan Soomaaliya iman fikirka ay ka haysatay xaaladda dalka wariye Cabdilaahi Xasan Daahir ayaa sii faaqidaya. Senator Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska dalka Mareykanka ayaa xalay xaflad ballaaran oo soo dhaweyn ah lagu sameeyay qasriga madaxtooyada Soomaaliya waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ilhaan oo ka hadashay munaasabada ayaa u mahadcelisay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. ugu horeyn Ilhaan Cumar ayaa ka sheekaysay safarka ay haatan ku soo gaartay gudaha Soomaaliya iyo sida ay ku soo qorsheysay. waxayna shaaca ka qaaday in ka hor inta aysan ka soo socdaalin Washington looga digay in ay xilligan soo boqoto gudaha Soomaaliya. waxa ay tilmaamtay in loo sheegay in waqtigan Soomaaliya ay ka jirto amni xumo isla markaana ay ka dhacayaan qaraxyo iyo dhibaatooyin kale. dhanka kale Senator Ilhaan Cumar ayaa dowladda federaalka ku bogaadisay go'aanka ay ka qaadatay dagaalka Al-Shabaab iyo guulaha waaweyn ee haatan laga gaaray. hadalkan ka soo baxay Ilhaan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan dalku uu ku jiro marxalad dagaal oo adag ee kacdoon ka dhan ah Al-Shabaab kaas oo ay horkacayso dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka waxaana laga gaaray guulo waaweyn. hagaag markan aan dhanka kale waxaan ku soo qaadanaynaa xubintii xog sheeko isla wariye Nasteexa ayaa idin waramaysa. kusoo dhawaada xubinteeni xog sheeko maanta idin waramayso anigoo Nasteexa Maxamuud Xisi. waxa maanta ku soo qaadanaa sheekadii ahayd xakameeyihii cudurka kansarka dhamaadkeeda maadaama qaybta hore aan soo qaadanay. waxay ku bilaabaysaa sida tan. Anthony waxa uu ku caanbaxay inuu ahaa nin yaqaana waxa uu yahay waxauna jaamacadda ka bartay luqadda Ingiriiska iyo suugaanta.
waxa uuna jaamacadda ka qalajibiyey 1940kii. waxa uu kaloo ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka, waxa uuna ka shaqaynayay gargaarka caafimaadka. wuxuu Antonio guursaday inta uu jaamacadda dhiganayay haweeneydii aan hore ugu soo sheegnay sheekada, laakiinse Ilaahay wax u wada ma kala siinin. sidoo kale waxaa la yaab ahaa xaaskiisu waxay aad ahayd mid carab badan oo aad u maseer badan, laakiin mar walba waxay ahayd mid dhiirigelisa inuu noqdo qoraa, ilaa uu noqday qoraa sare oo xirfadiisu aad u balaaratay. markii uu joogsaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxa uu bilaabay Antonio inuu wax ka dhigo jaamacadda Birmingham iyo wasaaradda waxbarashada. waxa uu alifay sheekooyin goos ah ilaa uu soo saaray riwaayadii ugu horeysay ee la magac baxday Aragtida Dagaalka sanadkii 1965. wuxuu qoray intii ku guda jiray qorista sheekooyinkiisa 11 sheeko. waxaa loo bedelay sheekooyinkiisii qaar filimaan ahaan, waxaana ugu caansanaa filimkii ahaa Clock Orange, taasoo laga saaray lagu hadlayay mustaqbalka caasimadda London. isku soo wada duub, Antonio wuxuu noqday mid wax soo saar leh oo wax badan dunida ku soo kordhiya. sheekadani waxaan ka baranaynaa wax kasta oo la joogteeyo inay noqonayaan wax laga gungaaro. halkaas ayaan ku hakinaynaa xubinteennii xog sheeko maanteennii waramaysay anigoo aan Istaxa Maxamuud Xirse. hagaag aniga oo soo gaadhay qaybihii dambe ee barnaamijka kulan wareedka raadiyo Magan, aan soo qabto qodobka ugu dambeeya barnaamijka kulan wareedkeena. dibadbaxyo ka dhacay Laascaanood oo looga soo horjeeday dilal loo geystay waxgaradka deegaankaas. Cabdikaafi Maxamuud Mukhtaar ayaa faahfaahinaya qodobkaas. wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay in shalay halkaasi uu ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayeen dad shacab ah. dibadbaxyadan ayaa looga soo horjeeday dilalka qorsheysan ee muddooyinkii dambe ka dhacay magaalada Laascaanood iyo weliba madaxda hay'adda amniga oo ku fashilantay wax ka qabashada arrinkaasi. dadka dhigay dibadbaxyadan ayaa dhagaxaan waaweyn ku jaray wadooyinka, ayaga oo dalbanaya in laga hortago dadka dilalka loo geysanayo. haldoorka gobolka Sool ayaga oo si weyn u dhaliilaya hay'adaha amniga Somaliland ee ku shaqada lahaa amniga magaalada. dibadbaxan ayaa imanaya kadib markii habeen hore kooxo hubeysan ay bartamaha magaalada ku dileen Cabdifataax Cabdulaahi Cabdi Hadraawi oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka Sool xilli uu ka soo baxay masaajidka ku tukanayay. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada booliisku ay rasaas ku eriyeen dadkii dibadbaxyada dhigayay oo ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah shacabka sida ay sheegeen goobjoogayaasha. dibadbaxyadan ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaanba magaalada Laascaanood ayaa inta uu socday waxa uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo goobaha ganacsiga, inkastoo markii dambeba dib u furmay. mahadsanid Cabdikaafi. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa loogu baaqay inuu isbedel ka sameeyo mas'uuliyiinta gobolka Sool. xildhibaan Qaasim Aadan Saleebaan oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa tilmaamay inuu ka xun yahay dilka loo geystay xildhibaan Cabdikaafi Cabdulaahi Sangub ee magaalada Laascaanood. waxa uu uga baryay in Alle naxariis jannadiisa geeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa geeri naxdin leh. Cabdifataax Cabdulaahi Cabdi oo loo yaqaanay Sangub waa nin dhalinyaro ah oo leh mustaqbal ifaya, ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaysay golaha wakiilada, ka mid ahaa oo weliba ka tartamaya xisbiga wadani. in geeridiisa xalay lasoo sheego oo ku baxo sifo aan la garanaynin iyo gacan aan la garanaynin waa dhiilo kusoo siyaaday deegaanka oo ka mid ah oo xoojinaysa waxyaabihii hore uga jiray ee ahaa dilka Laascaanood ka socda ee aan la garanayn cidda dilaysa, ayuu yiri. sidoo kale waxa uu eedayn u jeediyay hay'adda amniga oo ku fashilmay amnigii deegaanka, isla markaana ugu baaqay xilka deegaanka nabadiisa ku dhici lahayd gacan ku dhiglayaasha soo qabtaan. ma aqbalayno in ciidamadii ayuu yiri ugu badnaa iyo amnigii ugu badnaa uu gobolka dul yaalo maalin walba nin la dilo, cid soo qabato ama cid ka wada hadashaanaysa jirin. ma aqbalayno una dul qaadan mayno waxyaabaha deegaanka ka dhaca. waxaana ugu baaqay hay'adda amniga ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha. waxaa hadda dhacaya inuusan wax tallaabo ah ka geysan. ugu dambeyn waxa ugu baaqay in degdeg arrinta looga jawaabo. guud ahaan waxaan soo gaarnay dhamaadka kulan wareedkeennii. waxaa idin ila socodsiinayay anigoo Faad Cismaan ah. farsamada barnaamijka iyo isku dabaridkiisa mahad ballaaran ka gaartay waxaa igu garabsiiyey ustaadkeena qaaliga Ustaad Ismaaciil Ibraahim Xasan. waxaana bahda Magan isku duuban idin leeyahay nabadgelyo.